ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada Uganda ee UPDF ayaa galabta si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada istiraatiijiga ee Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose kadib dagaal socday muddo toddobaad ah. Howlgalkan ayaa qayb ka ah dadaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ee Al-Shabaab ayaa looga dilay in ka badan 100 maleeshiyaad oo ka tirsan argagixisada, halka tiro kale oo ka mid ah maleeshiyaadka argagixisada ay ciidamada gacanta ku dhigeen. Saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ayaa sheegay in ciidamada ay hadda ka wadaan magaalada iyo deegaanada ku hareeraysan howlgal nadiifina si loo xaqiijiyo amniga iyo nabadda lagu soo celinayo xasiloonida deegaanka. Sidoo kale ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay hub iyo saanad ciidan oo aad u fara badan, kuwaas oo maleeshiyaadka argagixisada u adeegsan jireen falalka amni darro. Howlgalkan lagu xoreeyay Bariire ayaa calaamad u ah guulaha waaweyn ee ciidamada qaranka ku gaarayaan dagaalka ka dhanka ah khawaarijta, waxaana la filayaa in dhowaan shacabka magaalada iyo tuulooyinka ku dhow ay dib ugu soo laabtaan guryahooda iyagoo ka nabad helaya khataraha maleeshiyaadka argagixisada.